waxaad ogaataan calankan aad ku wadataan garabkiinna bidix waxa uu ka turjumayo. waxaad xasuusataan mid ka mid ah halyeeyadii ciidanka Soomaaliyeed. Soomaad arkina meeshan weyn oo la yiraahdo Xalane ee ku taala Xamar yaa loogu magac daray. waxaa loogu magac daray nin idinkoo kala ahaa askari Soomaaliyeed ahaa Xalane la oran jiray 1964 ayaa ciidan Soomaaliyeed oo jooga tuulo yar oo la yiraahdo Togwajaale waxay la kulmeen dhibaatooyin badan. waxaa ka mid ahaa in ciidankaasi laga soo riixday meeshii ay joogeen. markii laga soo saarayay meeshii ayuu Xalane Allah u naxariistay wuxuu arkay calankii Soomaaliyeed oo xerada ka babanaya. wuxuu ka xishooday oo sharaftiisu siin weysay inuu ka soo tago calanka. waa calanka hadda idinka garabkiina bidix ku suran. wuxuu ku noqday meeshii markaasuu soo dejistay calankii iyadoo daqiiqad walba ay xabadi ku dhacayso. inta xabadda ay ku socotay xataa uu dhulka ku dhacayay calankaasi ciiddu ma aanay taaban. wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed laakiin wuxuu ka turjumayay Soomaalinimada iyo qarannimada. wuxuu ka turjumayay muhiimadda uu calanku inoo leeyahay. idinkuna waxaad tihiin waardiyayaashii calanka Soomaaliyeed. waxaad tihiin ciddi ilaalinaysay. waxaad tihiin ciddi soo celinaysay sharafta calanka Soomaaliyeed. sidaas daraaddeed in gabdhihiinna iyo wiilashiinna iyo hooyooyinkiinna iyo aabbayaashiinna lagu dilo dariiqyada, in jidadkeenna la xirxiro, in adduunyada aan ka harno, in Soomaaliya loo haysto inay tahay dalka dunida ugu liita. sida keliya aan uga bixi karna waxay tahay idinku inaad matashaan ummadda Soomaaliya, inaad ogaataan mas'uuliyadda ay leedahay dharka aad gashantihiin. Soomaaliya sida keliya ay ku horumari karto waxay tahay inaan ka adkaana cadowga annagoo midaysan. xukuumaddu waxay idiin ballan qaadaysaa in bil walba marka ay dhammaato aad heshaan mushaarkiina. xukuumaddu waxay jirtaa 2 bilood. waxaan aaminsanahay Janaayo ilaa bisha Abriil in qof walba oo ka mid ah ciidanka la siiyey mushaarkooda.